علماء السنة والجماعة أفر لا تسع مساجد كذا نلو فورين نين والبو والوصو صعدا إنتان وأنت مسجد كل عبادة سنة كل عبادة سنة جرتي كتابها الله آخرين شري هذه مساجد اللي صحيرو ومدارس اللي صحيرو هل كان هذينا ما فرديسنا متوقع سنة وتينا دلك دين متوقع سنة وتينا دور بلايين ضد كانوا صغر حي مدحوينا بعض دوشون لو شارع ورابهاس waxaan ka codsanaynaa inaad naga qabatid waxaan ka codsanaynaa inaad naga qabatid oo dhaqsi habdan inaad naga qabatid dadkan waa jamaacadii masjidul qadar ku tukan jirtay dadkii kitaabaha ku akhrisan jiray way oo maarta cabanahayo meeshan isugu yimid maanta salaada duhur markaan tukanay waxaan noo yimid ciidamo biliis ah oo saldhigga degmada howlwada ka socda way i wadeen 7 saac bar aheed ilaa 12 saac bar qol baan ku xirnaa aniga marka masaajidkan markaan waa markii saddexaad oo la xirayo 2010kii waxaa xiray 2010kii waxaa xiray shabaab oo dawladda la dagaalamay oo uu hogaaminayay ninkan hadda wasiirka oo maanta xiray masaajidka markuu xiray wuxuu ka dhigtay isbitaal intii dawladda ay dagaal kula jireen oo dhan isbitaal buu ahaa 2000 iyo markii laga saaray magaalada laga saaray maan ku soo noqonnay masaajidkii wada dhiig ah mutulaalka dhan uu dhiig yahay 2 maalmood baan dhaqayn qolo kastoo soo xirtana ma mahadinayn kuwa maanta xirana ma mahadin doonaan ilaahay idankiis 2022kii waxaa xiray nin la oran jiray Farxaan Qaroole Allah u naxariisto hadda waa dhintay wuxuu xirnaa hamaniyo maalin buu xirnaa kabacdi didaal dheer oo la galay waa asna waa maartay waa la furay masaajidka maantay mar labaad waxa xiray Roobow horta ma ismaana lahayn dawlad Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne ka yahay baa intay masaajidka wado 5 saac 4 saac xurriyadda ka qaad ismaana lahayn mudan madaxweyne mudan ra'iisul wasaare ninkaas markaa magacaabayseen kumaana farxin laakiin waa iska aamusnay waxaan u aamusnay dadkan waa dadkii dawladda jeclaa dawladnimada dadkii jeclaa kala dambeydka jeclaa nidaamka jeclaa way dadkan oo samaysnaa fawdo laakiinse waa filayna inuusan nadaynayn mudana madaxweyne waxaan ka codsanaynaa 24 saac madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa 24 saac masaajidka in loo furo 24 saac masaajidka hadaan loo furin oo warkiinu markuu dawladda gaaraan masaajidka loo furin waxaan ka codsanaynaa culimada Soomaaliyeed dariiqooyinka nin walba meeshiin ahlusunna wal jamaaca nin walba meeshiisa inuu qorigiis ka soo qaato meeshaas masaajidka ayaana jihaad ku iclaaminaynaa annagu dawladda la dagaalimayno laakiin tuugaas meesha ay keensadeen oo awal dadkeenni soo laayay oo soo qarxiyay oo soo qaxiyay oo soo laqay waa la dagaalamaynaa asaga iyo wuxuu wataa waa la dagaalamaynaa haddii ilaahay idmo laakiinse annagu dad dagaal uma samaysin waxaan rajaynaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga codkeenu markii ay maqlaan in masaajidka naloo furi doono nala nabadgelin doona ilaahay ka rajaynaynaa haddii ilaahay idmo culimada al-sunna wal jamaaca 24 saac masaajidka hadaan naloo furin nin walbow waa lagu soo socdaa intaan waa intii masjidka ku cibaadaysan jirtay kitaabaha lagu akhrin jiray haddii masaajidda laga soo xiro oo madaarinta laga soo xiro halkeen aadayna ma fadhiisanaynaa ma tuugaasaan u tagaynaa
dalkii diinta ma tuugaasaan watagaynaa dhowr balaayiin dadkeena oo soo qarxiyey madaxweyne baa dusha noo shaaray waraabahaas waxaan ka codsanaynaa naga qabatid waxaan ka codsanaynaa naga qabatid sida ugu dhaqsiyaha badan naga qabatid haddii kaleeto dadkan waa dadkii ku jeclaa ummaddu kugu diraya ummaddu kaa fogeynaya dadkan maaragtay dadkii dawladnimada jeclaa waa dadkii madaxnimada jeclaa waa dadkii kuu sacabinayay naga qabo tuugaas insha Allah ta'ala وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah